ururka wacyigelinta beeraleyda Somaliland ee afka qalaad loo yaqaano Somaliland Awareness Farming Organization isla markaasina loo soo gaabiyo SAFO iyo wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland oo iskaashanaya ayaa u kurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka beeraleyda ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolkaasi saaxil. waxaanu soo mahadnaqaynaa wafdida maanta noo timi ee soo socdaashay ee jidka dheer iyo hawsha soo gashay si ay inaan taakulayn iyo wuxuuga ogaato macluumaadka dhulka inaan masiibada ku habsatay inaan haday taakulayn teeda heshana inaan ku tala galsan inay wax ka qabato ayaa mahad iska leh aan u mahadnaqaynaa. waxa jirtay ayax soo duulay oo nagu habsaday oo deegaanka ku habsaday oo hadaanu beeraleynahay khaasatan inaan degmada la faruug ah aad noogu habsaday waxaanu iskaga celino ma aanaan hayn dab ayaanu dhulka ku shidnay markuu habsaday uu kici waayay dab ayaanu dhulka ku shidnay dabna masiibadiisa waa taqaaniin waxa kale oo jirta dhulka inuu fariistay uu dabada geliyay oo koronkorro uu ku dhalay aan socon haynin oo intii markuu roobku helay dabada soo baxday nuguna soo socota kaas kii hore waxa imika nagaga kaar kulul oo warwar nagu haysa koronkorta dhulka ka dilaacday. geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka socday ururka wacyigelinta beeraha Somaliland. waxa halkan maanta ku sugan ururka wacyigelinta beeraleyda Somaliland ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano SAFO ama Somaliland Awareness Farmers Organization. waxa noo farxada maanta inaanu la soconno xubno wasaaradda ah oo waxa weeye ay wasaaraddu hawsha qabanayso oo ka wada qayb qaadanayno. waxaanu maanta halkan u nimi inaanu bal indheyn ku sameeyno oo xog ururin sameeyno. waxa weeye arinkayga ugu weyn wuxuu ahaa maanta inaanu ogaano saameynta uu yeeshay ayaxii dalka ku soo kordhay maalmihii ugu dambeeyay laga cabanayay. waxaanu joognaa deegaanada u dhaxeeya gobolka Maroodijeex iyo Saaxil. mas'uuliyiintii ka socday ururka wacyigelinta beeraleyda Somaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka socday wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa dadka beeraleyda ee ka cabanaya dhibaatada ayaxa amaba koronkorta ayaa deegaankaasi ku tusay qaab looga hortagi karo dhibaatada ayaxa amaba koronkorta. saameyntu ayaxu ku geystay deegaankii u geystay waxaan arki karnaa imka geedkan oo kale qaabku u galay oo dhinaca dhan u soo cadeeyay oo uu dhameeyay hadduu in yar ku sii jirana ilaa caleen kaliya too qoyeenka gama tagi karo dhammaan deegaanka oo dhan waxaa la finayaa waa dhibaatooyinka uu reebay bay ka mid tahay inuu geedkiba uu saas oo kale u qalalay dhammaan deegaanka oo dhanna saas u qalajinaya haddaan imka laga hortagin. agaasimaha waaxda dhulka biyaha iyo saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Master Cabdiqani Yuusuf Galayd ayaa ururka wacyigelinta beeraleyda Somaliland uga mahad celiyay sida ay u garab taagan yihiin dadka beeraleyda ee Somaliland. runtii maanta oo runtii waxa weeyaan aan xog ururin ku sameeynay deegaamada gobolka Maroodijeex iyo Saaxil siiba dhul beeraleyda oo markaa runtii waxa weeyaan anaga wasaaradda horumarinta beeraha iyo ururka SAFO iskaashanaya oo runtii urur dhalinyaro oo runtii waxa weeyaan u heelan dadkooda iyo deegaankooda runtii waxa weeyaan la shaqeeyaan wada shaqeyn weyn la leh wasaaradda beeraha oo runtii waxa weeyaan aan runtii aan la shaqeyno. runtii halkan maanta waxaan ku maraynaa labada tiim ee wasaaradda iyo markaa waxa weeyaan ururka SAFO. runtii waa urur aad u dadaal badan oo dhalinyaro markaa waxa weeyaan aqoon iyo dardarti iyo xoog cusub iyo maskax cusub runtii waxa weeyaan wada himilo fogna leh oo ay doonayaan dalkooda iyo dadkooda markaa waxa weeyaan runtii inay ugu adeegaan. anaguna runtii maanta waxaan u soo raacnay inaan markaa waxa weeyaan bal wixii anaguna ka wasaarad ahaan iyo iyagoo runtii waxa weeyaan u heelan dadkii inay tareerno siiyaan waxa weeyaan dadkii xog dheeraada ka helaan oo xog walba baahiyahooda ku saabsan si wixii ay kari karaan mustaqbalka ay ugu shaqeeyaan iyaguna dadkooda iyo runtii waxa weeyaan iyo dalkoodaba. anaguna ka wasaarad beeraha runtii waxa weeyaan waxaanu aad iyo aad ugu heelanahay oo runtii waxa weeyaan waajib qaran nagu ah inaanu u shaqeyno dadka beeraleyda ah. sidoo kale waxaanu wada shaqeyn weyn runtii waxa weeyaan mid dhiirigelineed iyo mid aanu gacansaar weyn la yeelano kula shaqeyna ururka SAFO ee iskood si xilqaamay ee waliba himilada ay doonayaan runtii waxa weeyaan waxaan leeyahay daalina waa gaaraysaan halka doonaysan hadii la yiraahdo insha Allah anaguna way ku garab taaganahay ka wasaarad ahaan iyo ka dhalinyaro ahaanba. sidoo kalena wasiirka wasaaradda maraan weydiiyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Zaid waxyaabaha uga qorshaysan ayaxa amaba koronkorta dhibaatada u geystay dadka beeraleyda ee Somaliland
ayaa ka jawaabay isla markaasina shaaca ka qaaday in dowladda Somaliland ay dowladda Itoobiya ka dalbatay diyaarado lagaga hortagayo dhibaatada uu geysta ayaxa amaba koronkorta dadka beeraleyda ee Somaliland. ayaxaas wuxuu bilaabmay bishii 6 ee sanadkan wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo la kaashanaysa muxuu ahaay wadamada sida wadankan Itoobiya oo kale waxa jira muxuu ahaay hay'ad la dagaalanka ayaxa iyo hay'adda FAO anagoo taala kaashanayna runtii dadaal badan baan sameynay wad ogtiino wadankeena inta badan ma hayno inagu diyaaradii lagu rusheyn lahaa ayaxa laakiin waxaanu imika hadda wada xiriir sameynay wasiirka wasaaradda beeraha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo 4 cisho ka hor ku heshiinay in diyaaradii hadda imika inay bilaabaan muxuu ahaay rusheynta ama buufinta waxa loo yaqaan buufinta ayaxa oo deegaanadeena aanu ogolaanay inay xitaa isticmaali karaan madaarkeena Hargeysa waan warqad qoraal siiyay maariyaha madaarka Soomaaliland madaarada Soomaaliland oo dhan oo isaguna ogeysiin siinay isaguna waxaan u wargelinay in diyaaradaha runtii buufinaya soo kacayaan oo ay ka soo kacayaan jigjiga madaarkeena way isticmaali karaan marka shacabka reer Soomaaliland beeraleyda waxaan u sheegayaa in diyaaradaasi ay sida u soo gaarayaan cid ka soo aragtaba inay ogaato in ayax waa la buufinaya waxaan rabnaa marka wixii awoodayada shacabkayga mar walba aanu kala taaganahay waxaan kala hadhimayno wana dadaalayna ma aha markii ugu horeysay ee ururka wacyigelinta beeraleyda ee Somaliland ee loo yaqaan SAFO uu wacyigelin siiyo dadka beeraleyda ee Somaliland Aydaruus Maxamed Axmed Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida